deeq lacageed oo ay soo direen dhalinyarada suuqleyda Boosaaso ee gobolka Cayn taasi oo ay ku soo hagaajiyeen gudida abaaraha ee gobolka Cayn deeqdaasi oo dhammeeyay $555 taas oo loo qiibiyay dadka uu ku dhacay xanuunka shuban biyoodka ee jiifa isbitaalka xaradhanka loona geliyay raashin xaradhanka oo ay jiifaan dadkii shuban biyoodka uu ku dhacay oo aanu maanta soo gaarsiinay deeq lacageed oo ay iska soo ururiyeen suuqleyda Boosaaso ee deegaanka ka soo jeeda oo dhan $555 ayna ka soo ururiyeen gudida Faysal Duluc Abdulfataax Faragod Daahir Cali Maxamed Ismaaciil Qorane iyo Deeq Jaamac Gorse oo maanta soo gaarsiinay intii raashin la geliyay $555 ay ka faa'iideysanayaan wax ku dhow 20 qoys Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan idin weydiinaa miisaanka xasanaadka inuu idin saaro dadaalka iyo bugtada aad la qaybsateen dadkiina iyo deegaankiina khayr Allah suuqleyda Boosaaso wixii ay soo gudbiyeen oo 550 waxay kaga qayb qaateen waxa weeye alaabtan hoosta loo raashinka dadka imika jiifay walaalahoodana waa la siiyay waxaanu leenahay idinkuna khayr Allah idin siiyo aadna waxa weeye halkankiina ha joojinina dadkiina waad arkaysaa meeshu waran yahay waana idin ducaynayna insha Allah yana waa idin ducaynayaan dadaalkiinana sida aad u muujiseen insha Allah wixii ka dambeeyay aad dadaal oo muujiyo hadii Allah soo dirayna Ilaahay u barakeeyo anana Ilaahay shafan nooga dhigo shifo Ilaahay inuu nooga dhigo dadku waa bukaa aad iyo aad u xanuunsanaya waa nuxuud barakeysanay aad iyo aad baan u barakeysanay dadku ayweeye dibaddu ay joogaan dibaddu waxay doonaysaa in loo gacanta loo qaado loo gacanka waan idin ducaynayna aad iyo aad baan idin ducaynayna aad iyo aad ilashayada barakeysan ee sida loo gurgurmanaya win Ilaahay wax siiyo annagana caafimaad sariican Ilaahay siiyo Ilaah baan u mahadnaqan marka labaad waanu guddoonay deeqdan ay wadeen odayaasha deegaanka Bohol annagu waxaan nahay deegaanka Xararan waxaanuna ka tirsannahay gobolka Cayn ee Bohol waxaanu leenahay kuwa soo dhiibay deeqda iyo odayaasha dhammaan waa idin mahadnaqanaa mahad ka bacdi waxaanu leenahay waad aragtaan sida loogu buko deegaanka dadka deegaanka buka 3 meelood 2 miyiga laga keenaya xoolahi waa ka madheen gurma degdega sida ambulance oo kale ma leh kharash ay dadka dhinaca kale dadka ka faa'iideystay deeqda raashinka waxay maad balan u soo jeedeen dhalinyarada Boosaaso isla markaana ka soo jeeda gobolka Cayn deegaanka xaradhanka oo kamid ah deegaanada hoostaga Buuqol ayaa si rasmi ah maanta lagu qaybiyay qoysaska dayarka deeq raashina Xuseen Xasan Cabdi Soomaali News TV Buuqol